ugu dambeyntii sheekadan waa sheeko la yaab leh anigu xitaa markii aan arkay waan la yaabay dhakhtar ku sugan magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa qalliin dhinaca kansarka qanjirada ah waxa uu ku sameeyay bukaan ku nool magaalada Luanda ee caasimadda waddanka Angola oo ku taala bartamaha qaaradda Afrika. Arrintan sidee ku dhacday in dhakhtar Mareykanka joogo uu qalliin ku sameeyo bukaan ku sugan qaaradda Afrika ama waddan ka mid ah wadamada qaaradda Afrika? Waxa dhakhtarkan magaciisa waxa la yiraahdaa Dr. Fibul Patel waxana uu madax ka yahay Global Robotic Institute Advent Health oo ku yaala Orlando, Florida. Marka dhakhtarkan waxa uu sameeyay qalliinkan isagoo isticmaalaya robot. Mashiinkaasi waa mashiin qaali ah oo malaayiin dollar jooga, kaamirooyin casri ah ayaa ku xiran, internetka xawaarihiisu sareeyo ee fiber optica ayuuna isticmaalaya oo Orlando inta ka bilowda Atlantic Ocean-ka mara Brazil taga kadibna Angola dhinacaasi internetka fiber optica uu yimaado maadaama marka qalliin noocaasi ah la sameynayo oo waliba halis ah in haddii internetka uu xawaarihiisa ay cilad ku timaado ay khatar tahay in qofkaasi uu geeriyoodo. Marka dhakhtarkan waxa uu qalliinkan ka sameeyay marka hadda aad Mareykanka ka baxayso oo aad Afrika aadayso waxa ay noqonaysaa haddii diyaarad toos aad raacayso ku dhawaad 14 ilaa 15 saacadood, haddii transit meel kale aad ku maraysana 20 saacadood ilaa 19 saacadood amaba ka badan ayay noqon kartaa. Marka bukaanku waxa uu ku sugnaa ilaa 7,000 oo mayl ay isku jireen dhakhtarka iyo qofka bukaanka uu qalliinka ku sameynayay. Kiiloomitir ahaan waxay noqonaysaa 10,900 oo kiiloomitir. marka dhakhtarku robotkaasi kaamirooyinkaasi ay ku xiran yihiin laba shaashadood leh ayuu wejigiisa galiyay kadibna gacmaha ayuu ku maamulayay remote-ka sida hadda PlayStation adigoo ciyaaraya oo kale. marka sidaasi ayuu qalliinka ku sameeyay. waxa uu sheegay 1 saac iyo 20 daqiiqo inuu qaatay isla markaana uu ku guuleystay. marka waxa uu noqonayaa qalliinkii ugu horeeyay ee bukaan dhakhtarku isagoo aan qolka kula jirin robot uu ku sameeyo isla markaana ay kala fog yihiin. hay'adda FDA-da oo dowladda Mareykanka u qaabilsan dhinaca kontrolida cuntooyinka iyo waxyaabaha daawooyinka waddanka soo galaya ayaa ogolaatay. waxana uu noqonayaa qalliinkii ugu horeeyay ee qof bini'aadana lagu fuliyo oo robotic uu sameeyo telesurgery wax la yiraahdo. ninka lagu fuliyo magaciisa waxa la yiraahdaa Fernando da Silva waa 67 jir. 3 bilood ka hor ayaa kansarka qanjirada laga helay wayna adkeed in qalliin noocan oo kale ah uu ka helo waddankiisa Angola. waxauna ogolaaday inuu noqdo qofkii ugu horeeyay ee bini'aadama ee qalliinkan uu sameynayo robotka lagu tijaabiyo. hadda tijaabo ay waliba ku jirtay laakiin tijaabo lagu guuleystay ayay noqotay. marka waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay markii qalliinka uu dhamaaday kadib. waa kan Fernando da Silva oo la weydiiyay sidee dareemaysaa? caafimaad ayaan dareemayaa ayuu yiri. marka FDA-du hadda waxa uu dhakhtarku sheegay in maadaama qalliinkan aan ku guuleysanay waxaan doonaynaa kuwa kale inaan sameyno. hay'adda FDA-da ee Mareykanka waxay naga sugaysaa natiijada ka soo baxday inaan dib ugu celino. waxyaabaha ay eegayaan waxa kamid ah badqabka qofkaasi qalliinka lagu sameynayo iyo isku halaynta sida la isugu halayn karo qalliimada noocan oo kale ah. bal ka waran hadda waa teknolojiyadda waa ay sii horumaraysaa in qof Afrika jooga dhakhtar Mareykanka jooga uu qalliin ku sameeyo isaga oo halkan ku sugan oo Mareykanka aan ka dhaqaaqin ayay maraysaa. dhakhtarku waxa uu sheegay sidoo kale caawiyaasha ku sugnaa magaalada Luanda ee waddanka Angola oo qofka bukaanka ah la joogay xitaa marka ay suuxinayaan si toos ah ayaan u daawanayay waxay ila ahayd aniga oo la joogo oo kale ayuu yiri. waxana uu sheegay in caawiyaal halkaasi ay joogeen laakiin qalliinka isaga ayaa sameynayay, robotka isaga ayaa maamulayay. markii uu qalay kadibna xitaa isaga ayaa tolayay. marka qalliin lagu guuleystay ayuu ahaa. teknolojiyadda waa ay sii horumaraysaa. layaab ayay ila noqotay markii aan arkay. adigana waxaan filayaa inay layaab kula noqon doonto. waa mahadsantiin asxaabta.